shalay toole dad badan oon aqligoodu meel dheer gaarsiisanayn ayaa waxay lahaayeen barkadu waa midgaano waxa baran kari maayo waan soo dugnay adeer waxay lahaayeen barkadu waa midgaano xil xukuumadeed qaban kari maayo waan ka soo gudbay waxay lahaayeen barkad waa midgaano doorashada baarlamaanka ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro ma laha deerkiina uu dumo waaniga baarlamaanka dhex fadhiya iminkaan kuu sheegayaa si fiican u duubo maskaxdooda kuwii midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay aniga qabiil caayaan oo qof caayaan ay ku jirto saxaafadda Soomaaliland suxufiyiinta ka hawlgala ee rag iyo haweenba leh maalintii qarannimada Soomaaliland la aasaasay ilaa yawmin hada duruufo adag oo dagaal leh oo runtii u damqasho dadeed leh ayay soo martay xarig bay soo mareen xabad bay soo mareen waxaasoo dhan saxaafaddu ay u samaynaysaa waa sugitaanka xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliland dunida casriga ah dawladnimada 4 dhadhaar ayaa lagu sheegaa laakiin dastuurkeena 3 dhadhaar baa ku qoran dhadhaarka afraad waxa laga dhigaa ama bilarka ama tiirka afraad ee dawladnimada dunida qurxiya waa saxaafadda waxay dheeli tirtaa nidaamkeena dawladnimo ama good governance systemka waxa la yiraahdo saxaafaddu waxay tabisaa baahiyaha bulshada saxaafaddu waxay tahay voice of the voiceless waxa la yiraahdo waa codka dadkaan codkoodu meesha dheer aan ku dhicin inta dambe waxaanu arkaynaa inamada kamaradaha wata hablaha kamaradaha wata hay'adaha warbaahineed oo intuba ku hawlan say u soo tabin lahaayeen duruufaha maciishada nolosha iyo sixir bararka dalka ka dhacay say u soo tabin lahaayeen abaaraha saameeyay bulshadeena say u soo tabin lahaayeen masaakiinta u baahan in loo maciino saxaafaddu marka heer ka marayso waxay mudan tahay in xukuumaddu kaabto waxay mudan tahay in xil gaar ah la iska saaro waxay mudan tahay in aqoontooda saxaafadeed la kobciyo waxay mudan tahay in il gaar ah lagu eego inta saxaafadda Soomaaliland kuma eka maalintay taagan tahay ilaalinta qarannimada Soomaaliland iyo xoojinta sawirka siyaasiga ee Soomaaliland saxaafaddu iyada calanka u qaada inta beddelkeed maxay yimid waxa yimid saxaafaddu iyadoo xeer leh iyadoo hay'adaha ay inamadaasi ka tirsan yihiin loo dacwoon karo iyadoo maxkamad la tagi karayo in sida xoolaha suuqa laga ugaarso in si bilaa xigmada loo xiro in haddana hadhow ayr la iska soo daayo golaha wakiiladu wuxuu wakiil ka yahay shacabka Soomaaliland oo saxaafaddu ay ka mid wuxuu wakiil ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo muwaadiniinta iyo samaynta xeerarka sugaya xaqqa muwaadiniinta Soomaaliland hadda waxa xidhan oo aragti Facebook uu ku cabiray oo uu ku taageeray aragti siyaasiya oo qof kale uu xambaarsan yahay inaka Jamaal Gubernimo la yiraahdo saxafiga sababtu ku xidhan yahay waxa loo xidhay muddadu xidhan yahay waxa lagu haysto abjibaarka ay taagan marka la iska xidhay oo qodob waxa la xidhay Axmed Qani jaamac oo bishan gudaheeda waxa la xidhay oo xidhan Imraan Xuseen Aadan ayaa sagana la xidhay waxa xidhan oo dogtihiin oo suxufiga afraada Cabdimaalik Muuse Coddo oo maxkamadda tiri dambi baan kugu waayay banaanka ka bax oo markuu soo baxana dib loo qabtay meyd maxaa u dambeeyay baa leeyahay waa ka la siisada baa leeyahay waxaanu maraynaa in nimadii saxaafadda xabad marka xarigii laga daalay xabad loo adeegso say iyaguba sheegeen labadii saxafiye Cabdi Sharmani iyo Ali Mahdi Jibril ma garan karayo heerkanu barta ku gaadhnay dunidu waxaanu ka yimidnaa dimuqraadiyad xorriyatul qowl dastuur dawladnimo hanaan xisbiyada
intaba waxa beeninayo been ka dhigaya waxa lagu nidaamkeena dawladda isku bedelay waxyaaba cajiibka waxa ka mid ah abwaan cabdiraxmaan abees ayaa wuxuu qoray buug leeyahay maya dastuurku wuxuu damaanad qaadayaa muwaadiniinta xuquuqda qoraalka iyo qowlka saxaafadu xeer bay leedahay laakiin hay'adda looga dalka ugu shareeya waa dastuurka ayaa damaanada bixiya qofku buug buu qori karayaa aragtidiisu qori karayaa wax waaqic oo dhacay buu ka qoray cabdiraxmaan abees Somaliland ma oga iska daa inuu buugiisa soo bandhigo markii la soo daabacay iska daa in laga iibsado xuquuqda iibka iyo qoraalka iyo tacbiirka wuxuba waa xuquuq dastuuriya naftiisa buu meel uu galo waayo dalkii buu ka baxsan war maxaad buug u qortay ayuu u baxsanayaa qof muwaadini متى استعبدتم الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرار أكيد عمر بن الخطاب لا ورجور ما دتك جميستان ودليستان يدو هو ينكد دلين يجو حرة حقوق إلهي وسيو حرية سيدا بشر كلا وقاعد كريا هير كاسمات السومال للمرس أغلى وشرعا وحلا أقبل كرينا معه قولها وكيل هذا لو مسوا دورا إن حرر سوكي أو سياسي كو سلايسان إن حسبية كهذا الكود يا أرمها النوعاس لقد ضاد قولها نروح وتاجيه إلى أن أنت حقوق المواطنين تانو كو صباحنا نواتا تانو مد وجو هالجرجارنا نواتا حقوق بجبينية دونيدو واحد ولا على كتاي institutional دونيدو واحد ولا على كتاي institutional dadka dhaqanka Soomaaliguna wuxuu walaalo ku yahay bahda saxaafadu waxay walaalo ku tahay waa institution bahda looyaradu waxay walaalo ku tahay waa institution bahda macallimiintu waxay walaalo ku tahay waa institution bahda caafimaadku waxay walaalo ku tahay waa institution saxaafada Soomaaliland institution soldier leeyahay ka wakiila soldier waxaanu soo jeedinaynaa mas'uuliyad ballaaran baa ilaalinta xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliland ka saaran hadda yeelsanina تعديات داعية ربوضة هذا كقرة دونيدا توسا واحد نب لجوه هاي الصحفيين تشهاجة أنا جانا بربركين نتاعي لا يروق قبت لا كهذلا قرب كود يستاجا بعد الصحافة ده بيش أي لا ده هاي أي كولا لوبين وروك الصحفيين تسومالنا هنتي الناس صحفي بالك ما صعدتان مهند بدكوا صعدها سولشنا أنت أصلا لا واحد رجين هي إلى أبارتين من نجاش بيو عرفتين يا سومال أنت قروح بدنا نبين إن السعطة أدي بدل ما سنتين والسلام عليكم. وي حدبنا واحد دوني هنا هل سؤال كويتي معلومة هو دنبي وحال لي مسؤولية كترسان حسب الكلية يسوع كلا حكومة السومال الآن لما توضح الكبوة دين إن هذا يمكن كل هو جنيه عادي حسب ده بعض كنا حسب ده فكر الله هنا هذا محاد جواب سعادة ما هصير مسؤولية كتير. أن وما صنت عبد شبار si kooban marka laga hadlayo mas'uuliyadda shayga la yiraahdo ama xilka isaga iska xanta badan kursigaana runtii ayda iyo ceebta iyo caqabadaha bawt shalay tole daahir yaala dalka madaxweyne ka ahaa siilaya ku xigay heer wixii la gaarsiiyay wad ogta markay ka tageenna imikana waa madaxweynayaashii hore la leeyahay markay joogeenna waa la caayay waa la ceebanayay ujeedku shakhsiyadda qofka ma aha horta waa kursiga taasi waa ta labaad anigu golaha wakiilada waxa aan ku yimid ee dadku ay igu soo doorteen caashiqa iska ka caashiqsayn maaha ciddaan ahayna maaha waa inaan u noqdo carowga cadaaladda anu waxaan u taaganahay inaan u hadlo islaanta suuqa tamaandhada ku iibinaysa waxaan u taaganahay inaan u hadlo suxufiyiinta waxaan u taaganahay inaan u hadlo askariga waxaan u taaganahay inaan u hadlo dhakhtarka ama inanta umulisada ah ee bilaa mushaharka waxaan u taaganahay inaan u hadlo qof kastoo codkiisu meel dheer aanu gaarin propagandada daciifka iyo beenta iyo balaayada bulshada lagu dhex wado ujeedkeedu waxa weyn barxada ku boqo laakiin nin anigu waxa ku boqaa
xaqana kaga habrada meeyi haddaan ku dhawaaqayaa berri baan ku dhawaaqayaa saadan baan ku dhawaaqayaa saakuun baan ku dhawaaqayaa golaha anigu xildhibaannimada iyo xilkayga marka laga yimaado xoolowmaan soo doono waxaa xiliga saaran yahay ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta guri inaan ka dhisto umaan soo doonan gaadhi inaan ka iibsado umaan soo doonan dareen ummadeed baan wadda cabdikariin axmed mooge 26 kun ee codkaa waxa lagu siiyey inuu qashinka magaalada ku hagaajiyo inuu laamiyo ku sameeyo in mas'uuliyadda qaato anigana waxa laygu doorto codka ugu badan laygu siiyey oo laygu calmashay inaan xuquuqda muwaadiniinta ka hadlo taana cidna uga gaban mayno ugana habran mayno diirar badan baan anigu soo dibiyey shalay toole dad badan oon aqligoodu meel dheer gaadhsiisanayn ayaa waxay lahaayeen barkhadu waa midgaano waxa baran kari maayo waan soo dumiyey adeer waxay lahaayeen barkhadu waa midgaano xil xukuumadeed qaban kari maayo waan ka soo gudbay waxay lahaayeen barkhad waa midgaano doorashada baarlamaanka ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro ma laha deerkiina uu dumo aniga baarlamaankii dhex fadhiya iminkaan kuu sheegayaa si fiican u duubo maskaxdooda kuway midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay aniga qabiil caayaan oo qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan maanta mudane baarlamaanana insha Allah kiniinka qaraadhe ee dambana hal liqaano anu madaxweynaha baa arki doonaa caqabad kasta iyo culays kasta iyo cay kastaba waxaan ku liqaynaa gobonimada sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliland na jecelan u hadlayno shaqo bulshada ka dayacan oo baylaha oo caasimadu inay biyo u baahan tahay baan ka hadlay laakiin da shakhsiyad qofeed kama hadal iminkaan ku celinayaa berri baan ku celinayaa caasimadu biyo u baahan tahay booyada iyo biyoolayaal u dhaamiyo uma baahna mana jecel anigu inaan cid u jawaabo anuu hogaamiyaan ahay shacabkaan u hadlaa cidda aniga iga daba hadlaysaa ma jecel inaan u jawaabo ku noqdo salaam alaykum